السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهلول حكيم نين إسوالي سو أمديس حق أوشيغو حقنا أسلنسيو. هذا بهلول وحلو يقاني إنو والله لكن مو واليني حقوها عابها عقلقا. هذا بهلول وحقوها نين إساقو إسواليا هذانا حق قدبينيا ومدحيسي شعب كيزتونا كمو بغجرين حقا إلهي مو يعيد كلنا كمو بغجرين هرا وحلو يري haddii aad doonayso inaad hesho waxaanad heli jirin waa inaad hurtaa waxaanad huri jirin markaana kale waxa uu huray miirqabkiisii si ummadiisa uu gudbiyo xaqa waxaanu iska dhigay nin waalan markuu ciyaalka la joogo waa uu la biitan jiray oo la ciyaari jiray markuu madaxda la joogo runtii uu sheegi jiray markuu shacabka la joogana waxa saxda ah uu tilmaami jiray haddaba Bahlul waxa uu ahaa nin madaxda shacabba ay jecel yihiin oo xigmadeysta hadalkiisana la dhageysto haddaba waxa uu ahaa Bahlul nin madaxdiisa aan kala biqin xaqana u sheega xilli aan cid kale waxba u sheegi jirin oo madaxda laga biqi jiray Abu Wahab Hulul ibn Amr as-Sarafi waxa uu ku dhashay deegaanka Kuufa ee Ciraaq waxaana uu ahaa shakhsi jecel markasta inuu ummadiisa xaq gaarsiiyo waaqicigana la jaan qaadsiiyo haddaba Bahlul ama Bahlul waxa uu ahaa nin ummadiisa xaq ku canaanta waaqicigana u sheega hadhowna san loo xidhin iswaala Bahlul waxa uu sida jiray laangeedka qasabka isagoo ka kala ridaya lugaa sidii waqtigii carruurnimada waxaana uu noolaa waqtigii ay talinayeen boqorradii khilaafadii Cabbaasiyiinta ee Muusa al-Haadi Haarun ar-Rashiid Muctasim billaah iyo Ma'muun ragaa la midkaahi haddii loo eego magaca Bahlul luqadda Carabiga mar waxa uu noqonayaa nin wanaagsan oo dabacsan marna waxa uu noqonayaa nin qosol badan oo dadka kaga qoslin kara waqtigiisa ugu badnaa waxa uu la qaatay khaliifka Cabbaasiga Haarun ar-Rashiid Haarunna waa uu jeclaa waanu dhageysan jiray haddaba waxa aynu soo qaadanaynaa bar ka mid ah sheekooyinkiisii iyo xigmadihii laga hayay haddaba sheekooyinkiisii waxa ay ku wareegayaan qasriga looga talin jiray muslimiinta waayo isagu waxa uu haystay ruqsad ah inuu markuu doono qasriga ka bixi karo markuu doonana soo gali karo Bahlul ayaa maalin waxa uu galay qolkii boqorka isagoo boqorku maqan oo carshigiisu uu maran yahay oo ay fadhiyaan qolkiisa madaxweyntii iyo wasiiradii markaa la talin jiray dabadna Bahlul ayaa waxa uu ku fadhiistay carshigii madaxweynaha waxaana ay kaga rogaan feeriya laad dabadna Bahlul oo ooyaya ayaa waxa uu yimi khaliifkii waxaan weydiiyay maxaad la ooyaysaa waxa uu ugu jawaabay la ooyimaaya in lay dilay waxaan la yaabanahay anigoo intaa yar ku fadhiyay baa saa lay dilay hadda maxaa ku dambeyn doona aakhiro nin ayaa waxa uu doonayay inuu soo xajo dabadna garsoorihii uu sii dhiibtay lacag dahaba dabadna markuu soo noqday ayuu ku yidhi garsoorihii lacagtii dahabka ahayd isi waxaanu ugu jawaabay jiir ayaa cunay ilaa meel kale loo cararaa ma jirtee waxa uu uga ashkotooday Bahlul oo markaa ahaa nin wanaagsan Bahlul ayaa yidhi garsoore ii magacow wasiirka jiirarka waana la yaabay aakhirkiina waa loo magacaabay oo waxa loo sameeyay ciidan dabadna Bahlul ayaa soo cararay oo yidhi waxaan qodayaa guriga garsooraha dhexdiisa waayo waxa soo galay jiirkii soo qaatay dahabkii dabadna garsoorihii baa weydiiyay ku yidhi sidee buu jiir dahab u qaadan karaa waaba bire Bahlul waxa uu ugu jawaabay sidii ninkii miskiinka ah soo xajiyay uu kiisa u qaatay jiirku Bahlul ayaa ku yidhi kala dooro inaan bartan qodo kana soo saaro jiirkii dahabka qaatay iyo inaan ninkii miskiinka ah lacagtiisii u celinayso oo aad lacagtiisii siinayso dabadna waxa uu doortay inuu ninkii lacagtiisii u celiyo sidii baanu ku ogaaday khaliifkii inuu ninkani tuug yahay oo xilkii kaga xayuubiyay maalin ayaa waxa khaliifka loo keenay nin waxaday dabadna markii arrinkiisii la celceliyay wuxuu noqday in gacanta la jaro dabadna waxa soo booday Bahlul oo wuxuu yidhi mudane ama khaliif ninkan arrinkiisu wuxuu noqonayaa hadduu bareer u xaday ama tuugnimo in gacanta la jaro hadduu se baahi u xaday ama ay gaajo u geysay in khaliifta qoorta loo dheereeyo dabadna khaliifkii bartiiba ku gartay in ummadiisu gaajaysan tahay oo ay waxaan baahi u geysay ninkiina halkiiba ku badbaaday Bahlul ayaa maalin u yimi nin hantiilaa oo ku yidhi sidee ku hesheen hantidan ama ku hanatay waxaanu ugu jawaabay kadeed iyo rafaad Bahlul ayaa weydiiyay wuxuu ku yidhi ma ka gaadhay ujeedkaadii aad ka lahayd inaad xoolahan u dhaqatay dabadna waxa ugu jawaabay maya Bahlul ayaa wuxuu ku yidhi kii aad u rafaaday ee waqtiga ku bixisay ayaan weli ka gaadhin dantaadii sidee ku helaysaa mid aanad waqtiba ku bixin oo uga jeedo aakhiro nin ayaa ka soo cawday Bahlul oo u yimi khaliifkii muslimiinta markaa talinayay waxaanu yidhi Bahlul dhagax buu iga jaray
bahluul baa loo yeedhay la weydiiyey, maxaad ninka dhagaxa ugu dhufatay? bahluul wuxuu ku jawaabay, khaliifkaygiiyow, ninkani dadka dhexdooda wuxuu la marayey 3 doodood aan waxba ka jirin. bahluul ayaa hadalkii bilaabay, wuxuu yidhi, dooda koowaad waxay tahay buu yidhi, inaan janno iyo naartoonna jirin oo aan dareemayaal lagu dareemi karin. dooda labaadna waxay tahay in aanu bini'aadanku ikhtiyaar lahayn oo la khasbay. dooda saddexaad waxa weeye inaan ibliis la cadaabayn sababtoo ah wuxuu ka samaysan yahay dab, dabkuna dabka ma cadaabo. bahluul ayaa yidhi, khaliif, ninkani dadka dhexdooda waxaasuu la dhex marayey. bahluul ayaa lagu yidhi, waxaad ninka u dakhartay? waxaanu ugu jawaabay, khaliif, ninkan waxaan ka jaray dhagax ama dhoobo, waxaana laga sameeyey dhoobo. bahluul ayaa yidhi, khaliif, ninkan waxau inoo sheegay inaanu xalay oo dhan seexan oo uu xanuun hayay, xanuunkana inama sheegi karo ama inama taabsiin karo. bahluul ayaa yidhi, khaliif, ninkan waxa uu yidhi, bini'aadanku ikhtiyaar ma leh, anna marka ninkan dhagax ka jarayey ikhtiyaar maan lahayn oo waa lay khasbay. bahluul ayaa ninkii sidii kaga buriyey 3 shubhe ee uu watay. sidaas ayaanu ku badbaaday bahluul oo uu ku asiibay xaqa. haddaynu isnaano xigmadii bahluul, qaniyo buug u qaata, qalinkuna wuu inaga dhammaanayaa, buugguna wuu inaga buuxsamayaa. haddaba qaacidada bahluul waa muhiim.